Roma cutubka saddexaad. Haddaba maxay yuhuuddu dadka kale dhaantaa ama gudniinta waxtarkeedu waa maxay? See walba wuu u badan yahay. Marka hore waxaa yuhuud lagu ammaanayey hadallada Ilaah. Haddaba maxaa jira haddii qaar aanay rumaysad lahayn? Rumaysad darradoodu miyay ilaahnimadiisa burin doontaa? Ma suurtoodo. Ilaa runlow ha ahaado, inkastoo nin walba beenlow yahay, sida qoran, in xaq lagaaga dhigo hadalladaada oo aad liibaantid markii lagu xukumo. Laakiin haddii xaqnimo la'aanteennu muujiso xaqnimada Ilaah, maxaynu odhan doonnaa? Ma xaq daran yahay Ilaah cadhada soo dejiya, sida dad baan u hadlaya? Ma suurtoodo. Hadduu xaq daran yahay, sidee baa Ilaah dunida u xukumi doonaa? Runta Ilaah hadday beentayda ugu badatay ammaantiisa, dee maxaa aniga haddana weli la iigu xukumaa sida mid dembile? Maxaanu u odhan weynaa shar aan samayno in wanaag yimaado, sida naloo hafro oo ay qaar naga sheegaan sidii annagoo nidhaahna xukunka ay kuwaasi helaan waa xaq? Waa maxay haddaba? Miyaynu dhaannaa iyaga? Maya, sinaba. Waayo horaannu dacwaynay yuhuudda iyo Giriigtaba inay kulligood dembi ku hoos jiraan, sida qoran. Mid xaq ahu ma jiro midnaba. Mid wax garanayaa ma jiro. Mid Ilaah doondoonaa ma jiro. Dhammaantood gees bay u wada leexdeen. Waxay wada noqdeen waxaan waxtar lahayn. Mid wanaag falaa ma jiro midnaba. hungurigoodu waa xabaal furan. carrabadooda waxbay ku khiyaaneeyeen. bishmahoodana waxaa ku hoos jira sun jilbis. afkooda waxaa ka buuxa habaar iyo qadhaadh. cagahoodu waxay u dheereeyaan inay dhiig daadiyaan. jidadkooda waxaa yaal hoog iyo ba'. jidka nabaddana ma yaqaanin. cabsida Ilaahna indhahooda ma hortaal. waannu ognahay in wax alla wixii sharcigu yidhaahdo uu ku leeyahay kuwa sharciga ku hoos jira, in af kasta la xidho oo dunida oo dhamm waa Ilaah ku hor gardarraato. maxaa yeelay shuqullada sharciga ninna xaq ku noqon maayo Ilaah hortiis, waayo sharciga ayaa lagu gartaa dembiga. laakiin haatan sharciga la'aantiis ayaa xaqnimadii Ilaah la muujiyey, waxaana u mara furay sharciga iyo nebiyadii. waxaana weeyaan xaqnimada Ilaah ee lagu helo rumaysadka xagga Ciise Masiix, oo u ah in alla intii rumaysata oo dhan, waayo kala duwanaan male. maxaa yeelay dhammaan way wada dembaabeen oo gaadhi waayeen ammaanta Ilaah, iyagoo hadiyad ahaan xaq lagaga dhigay nimcadiisa xagga madax furashada Ciise Masiix ku furtay, kan Ilaah u soo bixiyey inuu dhiiggiisa kafaara gud ku noqdo xagga rumaysadka la rumaystay dhiiggiisa aawadiis, inuu xaqnimadiisa ku muujiyo dembidhaafka uu dembiyadii hore loo sameeyey ku dhaafay samirkii Ilaah. waxaa weeye muujinta xaqnimadiisa ee haatan joogta inuu isaga qudhiisu xaq ahaado iyo kan xaq ka dhiga kan Ciise rumaysan. haddaba fahankii mee waa reebban yahay. sharci caynkee buu ku hadhay? ma xagga shuqullada? maya, laakiinse wuxuu ku hadhay sharciga rumaysadka. sidaa daraaddeed waxaannu ku tirinnaa in nin xaq ku noqdo rumaysadka ee uusan xaq ku noqon shuqullada sharciga. ama ma ilaah yuhuudda oo keliyaba miyuusan ahayn kan quruumaha kalena? haa, waa yahay kan quruumaha kalena. hadday tahay in ilaah mid keliya yahay oo uu kuwa gudan xaq kaga dhigi doono rumaysadka, kuwa buuryaqabka ahna rumaysadka, dee miyaannu haddaba sharciga ku burinnaa rumaysadka? yaanay noqon. laakiin sharciga waannu taagnaa